Asalaamu calaykum ardayey maalin wanaagsan waa macalin mustafe kusoo dhawaada cashar cusub oo aad ku baranaysaan midabada af soomaaligu waxa uu leeyahay midabo kala duwan gobolada qaybtood waa laga yaabaa in ay ku kala duwan yihiin midab kasta iyo waxa loogu yeero balse waxaa jira midabo guud oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay isku magac u yaqaanaan sida midabka madowga oo kale midabka buluuga midabka guduudka iyo midabka cagaarka mid ayaad u baranaysaan midabada iyo waxa lagu dhaho afka hooyo af Soomaaliga casharkan waa fasalka koowaad ama ardada dhammayn rabta xadaanada caruurta midabka koowaad aad maanta baranaysaan waxa weeye midabka madowga midabkan waa midab madow ah madow isku day arday inay iga daba dhahdaan madow madow midabka ku xiga waa cadaan cadaan midabkan waa cadaan iga daba dhaha laba jeer ardayey cadaan cadaan aad baad u mahadsantihiin midabka saddexaad aad baranaysaan waxa weeye guduud ama dadka qaar waxay dhahaan gaduud ama casaan casaan haddaad maqasho ama guduud haddaad maqasho waa midabkaas aad arkayso arday haddii lagu dhaho midab guduudan mari ama midab casaan ah waa in aad garan karto in laga wado midabkaas aad u jeedaan cagaar midabkan cagaarka ah waa midab indhaha u roon tusaale waqtiga xagaaga oo kale ama waqtiyada naqa uu jiro dhirta iyo cawskuba waa cagaar dhirta marka ay cagaar yihiin aad ayay u qurux badan yihiin oo in la fiiriyo ayay ku qurxoon yihiin oo indhaha ayay u roon yihiin cagaar midabkan waa midabka cagaarka arday laba jeer iga daba dhaca cagaar cagaar aad baa u mahadsantihiin midabka xiga waa jaalle midabkan waxaa la dhahaa jaalle haddii lagu dhaho midabka jaallaha mari waa inaad garan kartid in laga wado midabkaas dadka qaar waxay u yaqaanaan magac kale balse waxaan baranaynaa magaca ugu badan ay dadku u yaqaanaan midabkan waa midabka jaallaha buluug midabkan waa midab cirka dabcan cirka ayaa u eg buluug waa midab aad u qurux badan isagana calanka Soomaaliya ayaa waxa uu ka samaysan yahay midabka buluuga ah iyo xidigta oo ah midab cadaan ah midabkan waa bunni bunni haddii lagu dhaho midab bunni ah mari waxaa laga wadaa midabkaas aad u jeedaan basali xoogaa bunniga iyo basali waa midabo aad u adag waye laakiin midabada ugu badan ee dadku ay isticmaalaan waa midabada hore soo sheegnay sida cadaanka madowga buluuga guduudka jaallaha laakiin midabadan oo kale waxay ka samaysmaan midabo badan oo la isku dhex daray soo badanaaba caruurta qurbaha ku dhashay way ku adag yihiin magacyadan tusaalahaan haddii loo dhaho basali mari ma fahmayaan macnaha basali waxaa laga wadaa basasha ayuu midabkan u egyahay basasha soo roosa ayay dadku u yaqaanaan midabka roosaha laakiin basali baa la dhahaa basali baa afka Soomaaliga lagu dhahaa midabkani waa midabka oranjiga ama liinta u eg soo Soomaalidu waxay dhahaan liimi macnaha wuxuu u egyahay oranjiga ama liinta liin macaanta korkeeda qolofta haddii aad fiiriso midabkan ayay dabcan ka samaysan tahay soo midabkan waxaa la dhahaa midabka liinta ama liimi ama orange hadda saad u taqaano dameeri midabkana aad u adagyahay isagana weliba waa ku adagyahay ciyaalka qurbaha midabkan dameeriga ah waa dameeri midabkan aad u jeedaan iga daba dhaha laba jeer ardayey dameeri dameeri su-aalihii intaas ayay midabadu arday ugu muhiimsan ay noogu dhammaadeen isku daya su-aalahan inaad ka jawaabtaan haddii
aad dabcan youtube-ka aad ka daawanaysaan muuqaalkan, isku daya inaad qaybta commentiska aad kusoo qorto jawaabta su-aashan koowaad. sheeg midabka calanka soomaaliya. calanka aad ujeedaan midabka uu calanku ka samaysan yahay, halkaas jiitinta ama diilinta ayaa ardayga ku qoraysaan. haddii aad muuqaalkan ku daawanaysaan guriga ama aad iskuulka aad dabcan ku dhex daawanayso, macalinkaaga u sheeg midabka uu ka samaysan yahay calankan soomaaliya, ama warqadba waad ku qori kartaa. su-aasha labaad waxa weeye ardayay, sheeg midabka boorsadaada. boorsada aad iska leedahay oo aad iskuulka maalin kasta u qaadato ama aad usoo qaadato, midab nooceeya weeye? ma sheegi kartaa boorsadaada midabkeeda ama sida ay u eg tahay, ama midabada ay dabcan ka samaysan tahay? su-aasha u dambaysa ardayay waxa weeye, sheeg midabka calanka Sweden. calanka Sweden dabcan midabada uu ka samaysan yahay. calanka Soomaaliya oo kale muxuu ka samaysan yahay? horay idinkaan idinka raba. su-aashii koowaad bay ahayd ardayay, inaan ka jawaabo ma rabo. calanka Soomaaliya midabadiisaan weydiiyey. calankan Sweden haddii aad ku nooshahayna midabadiisa ayaa laga rabaa in aad qaybta commentiska noogu reebto, ama aad barahaaga ama waalidiinta aad u sheegto, ama aad qalin iyo warqad aad ku qorto. aad baa u mahadsantihiin. ha ilaawin in aad like-ta noo saarto, flow aad dhahdo youtube channelkan si casharo muhiim ah aad halkan ugala socoto. flow iyo subscribe ha ilaawinina. waa macalin Mustafa oo idin leh maalin wanaagsan.